عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel ka soo joogtaan ku soo dhawaada warbixi dalka iyo adduunyaha wada ka soo gaaray habeenkan aawa xagga telefishinka. qodobada ugu doorkana warkan xagga telefishinka waxaa kamid ah madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti gudoomiyaha golaha xukuumadda mudane Ismaaciil Cumar Geele ayaa maanta daadiyay munaasabadii lagu soo gabagabeeyay fadhiyadii qaran ee waxbarashada tababarada iyo xirfadaha kala duwan oo muddo 4 maalmood ka socday caasimadda Jabuuti. gudoomiyaha golaha baarlamaanka ee Jabuuti Idris Aawad Cali ayaa maanta qaabilay danjiraha dowladda Canada oo soo wakiilatay Jabuuti oo runtiisa ay tahay caasimadda Addis Ababa ee dalka Itoobiya Yves Aboulange. gudoomiyaha guriga ganacsiga ee Jabuuti Saciid Cumar Muuse ayaa maanta qaabilay maalqabeeno reer Soomaaliya oo ka socda wadamada caalamka. xagga wararka caalamkana ciidamada dalka Britain ayaa si rasmi ah ugu wareejiyay ammaanka magaalada Basra mas'uuliyiinta dalka Ciraaq. intaasi warkii oo kooban haatan isagii oo dhan warkii dalka. madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti gudoomiyaha golaha xukuumadda mudane Ismaaciil Cumar Geele ayaa maanta daadiyay munaasabadii lagu soo gabagabeeyay fadhiyadii qaran ee waxbarashada iyo tababarada iyo weliba xirfadaha kala duwan oo muddo 4 maalmood ka socday caasimadda Jabuuti. fadhiyadii qaran ee waxbarashada tababarada iyo xirfadaha kala duwan ayaa maanta howlihiisa laga soo gabagabeeyay guriga ummadda ee caasimadda Jabuuti. munaasabadii gudnimadka fadhiyadaasi waxaa hormuud ka ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti gudoomiyaha golaha xukuumadda mudane Ismaaciil Cumar Geele. madaxweyne Geele markii uu gaaray guriga ummadda ee caasimadda Jabuuti waxaa halkaasi ku soo dhaweeyay wasiirada kala ah wasiirka shaqada iyo istaageersiga qaran Maxamed Diini iyo wasiirka waxbarashada qaranka iyo tacliinta sare Abdi Ibrahim Absiye, ardayda dugsiga sare ee warshadaynta ee liiga iyo weliba ardayda dugsiyada waxbarashada ee xagga xirfadaha. fadhiyadaasi oo hormuud ka ahaa madaxweynaha dalka mudane Ismaaciil Cumar Geele oo xiriirinayay ra'iisul wasaaraha dalka Dileeta Maxamed Dileeta ayaa waxaa soo qaban qaabisay wasaaradda shaqada istaageersiga qaran iyo wasaaradda waxbarashada qaranka oo la kaashatay shirkadaha gaarka iyo kuwa dawliga. fadhiyadaasi oo socday muddo 4 maalmood ayaa waxaa ka qaybgalayaashu ay ka baarandegeen dhinacyada kala duwan sida maamul wanaagga waxbarashada iyo xirfadaha kala duwan shaqada iyo weliba baahida daruuriga ee dhinacyada dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha ee dalkeena. waxaana ka qaybgalayaasha ka qayb qaatay fadhiyada qaran ee barashada tababarada iyo weliba xirfadaha kala duwan ay fadhiyadaasi ka soo saareen codsiyo kala duwan. Dr. Ibrahim Sulaiman oo ah agaasimaha macadka daraasaadka teknolojiyadda ee raacsan jaamacadda Jabuuti oo hadal gaaban ka jeediyay gabagabadii fadhiyada qaran ee waxbarashada tababarada iyo xirfadaha kala duwan ayaa cadeeyay in qabanqaabada fadhiyada qaran ay ku soo deegmeen xilli uu dalka Jabuuti uu ku jiro koboc dhaqaale. taasina waxa uu sabab ayaa uu Dr. Ibrahim Sulaiman maalgelinta shisheeye waana lama huraan ayaa ugu raacay Dr. Ibrahim Sulaiman in la meel dhigo istiraatiijiyad qaran oo awoodda saaraysa dhinacyada kala duwan ee waxbarashada tababarada iyo weliba xirfadaha kala duwan. ruuxaantii ayaa uu fadhiyadaasi waxa qayb weyn ay ka qaadan doonaan horumarka dhaqaale ee dalka waana kuwa faa'iido ugu fadhiya dhalinyarada reer Jabuuti iyagoo ka faa'iideysan doona xagga barashada iyo weliba tababarada iyo weliba gaar ahaan xirfadaha kala duwan. guud ahaan si wanaagsan ayaa u dhamaaday ayaa u carabaaday Dr. Ibrahim Sulaiman oo agaasimaha macadka daraasaadka teknolojiyadda ee raacsan jaamacadda Jabuuti. fadhiyadii qaran ee barashada tababarada iyo xirfadaha kala duwan oo muddo 4 maalmood ka socday caasimadda Jabuuti. madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti gudoomiyaha golaha xukuumadda mudane Ismaaciil Cumar Geele oo hadal gaaban ka jeediyay gudnimadkii fadhiyadaasi ayaa waxa ku guubaabiyay dhalinyaradu in lacagta shaqada ay ka jeclaadaan waxaana uu arrinkaasi ku yiri madaxweynuhu sida tan. ujeedada khaasatan dhalinta jaamaciyadda ee shahaadooyinka haysata ee shaqada ayaa la hadlayaa
waxaan leedahay waxaan ka soo hadlaynay intan oo dhan shaqada dadka shaqada bixinaya kuwa abuuraya dowladda iyo xiriirkooda sidee ayaan ugu jawaabnaa dadka shaqadoonka ah inaan siino shaqo sidee ugu jawaabnaa dadka shaqaaladoonka ah aanu siinaa shaqo laba su-aalood oo isgarab taagan mid waa kii waddankan u dhashay oo maalqabeen noqday oo doonaya inuu warshad sameeyo ama hudeel sameeyo ama uu shaqo ama lacag haysta oo fikirkii ka maqan yahay saddexdaana garabdhigiya kaa hore cilmiga soo bartayna ku darban oo isaguna waxa uu soo bartay markuu shaqo ku waayay wax labaad isku day inuu is yidhaahdo ka meermeera ama dowladda yala doona ama etaablismaanku dhiig yala doona oo horta dee sagaashan kun baa laysiin maxaa ka doonaa qaar yidhaahda way jiraan waxa ay ganacsan yihiin horta lacagta in shaqada maaha waxa ay doonayaan qaarkood waxa weeye lacagta horta shaqada hay u dambaysa buu leeyahay horta intaan helayaa adduunka dadka kalaa laga bilaabaa oo shaqaan doonaya leedahay tugeli hora iyo tugeli ka dambaa iyo tu habeenki haddaan isku darsado saddex so lacag badan heli maayo waa la sugaa annagu xabad horta lacagteedaan doonayaa isma galayaan mustaqbal joogna iyo waxa aan higsanayno iyo isma galayaan intaas dadka dee reer Jabuuti ee xoolaha leh maalqabeenka ah shaqo marka uu shaqaan u baahan yahay waa muhiim diiwaankeena kan aan dhalay uu kharuuri doonaa walba taasina iyaduna waxa weeyaan fursad kale weyn aan ku dayo mid yidhaahdaa hadduu kharibana mushigiise haddaan ka kici waayana odhanay haddana taasina way jirtaa iyada in loo fiirsa kolka waxaa fiican in dadku aabbahiibaa wax ka shaqayn jiray awowgiibaa ka shaqayn jiray kii ka horreeyabaa ka shaqayn jiray anna waan galay waan weyneynaya waan ballaarinayaa hore waan u warayaa waxaan gaarsiinayaa adduunka sida uu yahay waan gaarsiinayaa baa ugu qurux badan wey oo shaqo isaga oo reer Jabuuti ayuu shaqo abuuraya kuwa kale oranaya waa la isbiirsanaya kolka oo haddaad laba qof qorto toban qof baad noolaysay waa in qofkaasi aad shaqaysiisay inaan daliilaano qof dowladda ka yimaado oo maalqabeena maahin shaqo abuurmaysa ay ma jirtaan dowladda mooyaane shaqo kaloo abuurmaysa ay ma jirto inaan gaaraan qalab yiradsana entreprise markaan doonay inaan yaro sameeyo dee waa inaan wax ka garto horta entrepriseka shaqadeeda waa inaan daliilii samayn karo waa inaan xisaabtami karo intaa wax ka helaya waa inaan garan karo haddii faranjigu uu samayn jiray kuwa magaranaysaay qiimahii ku qoleeya 500 oo uu dul saari jiray ay kama socoto konkurenskii baa batay dadkii baa batay entrepriseadii baa batay shaqo wanaagsanna waa la doonaya tugu dhifoo ka dhaqaaqana la doonaya tuu magaranaysaay keenaysa ninku haddii uu ganacsan yahay entreprise wuxuu u samaynayaa hadday tahay maanta maad wax ka heshido problem yaraad ku daarta iyo haddii uu doonayo inuu noloshiisaba ku dul abuuro laba wuxuu kala gooni haddii uu doonayo inuu noloshiisa ku abuuro waa inuu urta u fiirsado daynka u galayo u fiirsado shaqada u qabanayo inuu garanayo garto xisaabta uu samaynayo xisaab toosan oo caqli leh oo magaranaysaa uu kaaliteegiibana keeni karayo kolka uu sameeyo marka reference gudaheeda تفهم في العلم طلبا من في العلم قيمة سنة ومناسب صبح ذا صبح استعلم أن تربيش تأسيس عني أمرك
دليلتنا وحن لنا حق الدليل وبدأ كهذا من وحاول يقعني هدي وقوة يدلل وحاول الضاني وافد بيارا الضاني هدي شق إرما هدي الدبلوم لنا وتشعر كوسي سقطت إرما هدي الفيديو ليس وحاله وافد بيارا وطبعا كان توصلني تسعر وحيوانا هم وتقع شغطه وانتهى واحد الله فالمراق لكن شغل الأكبر مصر وعرفتين كنت يجبت السيسيين مع القريب المدريد تاو شغالان دونيا إدعوا عنك آيان دونيا إدعوا عنك آيان دونيا قف بغانا نهسين ما يعني لا ما انتبه عملنا السكر ما هي مدين كعدان وحينا شهادة أفستان هنا وولدي لين أن تعلم dhinaca kale hogaamiyaha koowaad ee dalka mudane Geele waxa uu ka hadlay faraqa u dhaxeeya shaqada iyo weliba shaqo la'aanta waxaana wari shaqo la'aantu wadanku inaan ka qolka weynuhu lix jir yahay ilaa 25 jirkiis lacag uma wadnama ma xisaabiyaan dadku laakiin lacag weeye kan baro riwaal baro secondaire baro professional baro jaamacad baro والله العب على الدنيا كل سنة عند الجواب تام وريديار بناء حد سيرسين أجمع من المتاس بعدين نقدر تقولي فوقعي إني وبعدين البيت سبعين أرطال دين إنه درب كلية يوقعه كلية دين الجرتان هوشا أتكسر جرتين كان أنا سيانو شهري أبا وبولي عن جعلنا يقول أوصل من الجنوب كل مسجدين وهذين جونا عن قدمين بين الأحمتين بين الواحتين عن صحنا عن سكسر محمد عن أبونا سكفي عن تبقى مسؤولية نمور إلى الوطن شقدونا علمدونا منفعدونا ملقيدونا أو ملقونا يجمعيا عن أملاك تكون وعنهي تذكي يوان بيرسلين ويرقي يوان بيرسلين مستقبل تيجي ديار وعنهي يعملان السلام عليكم madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti gudoomiyaha golaha xukuumadda mudane Ismaaciil Cumar Geele oo gobol u jeediyay dhalinyarada ku haysta shahaadooyinka kala duwan ee dalka wasaaradda qodaalka taranka xoolaha iyo ka faa'iideysiga biyaha oo la kaashatay hay'adda UNICEF ayaa qaban qaabisay afadhiga lagu darsayo istiraatiijiyada lagu maareynayo goobaha biyaha ee reer Guraaga afadhigaasi waxaa daadihinaya wasiirka qodaalka iyo taranka xoolaha Abdulqaadir Maxamed Kamil waxaana u joogay wakiilka sodorka FAO Ali Arabo wakiilka UNICEF Alex Kamuradi mas'uulka sodorka wasaaradda qodaalka iyo xubnaha maamul goboleedka ujeedada fadhigana waxa uu ahaa mid ku saleysan sidii loo maareyn lahaa goobaha biyaha reer Guraaga waana tallaabo kor lagu qaadayo tayada nololeed ee reer Guraaga waxaana loo baahan yahay xubnaha maamul goboleedku ay ka qayb qaataan mashaariicda ku saleysan maareynta goobaha biyaha hadal gaaban oo fadhigaasi uu ka jeediyay wakiilka UNICEF Alex Kamuradi waxa uu carabka uu ku dhuftay dadaalka ay wado wasaaradda qodaalku ay ku wajahan maareynta goobaha biyaha ee reer Guraaga waxaana uu ka codsaday bulshada rayidka iyo xubnaha maamul goboleedku in qayb weyn ay ka qaataan hirgelinta mashaariicda dibadda lagu taagayo goobaha biyaha ee reer Guraaga waxaana kale uu ka codsaday in ay daryeelaan goobahaasi toutes les étapes de réalisation du projet d'implantation de points d'eau, de l'identification. geestiisa wasiirka qodaalka taranka xoolaha iyo ka faa'iideysiga biyaha mudane Abdulqaadir Maxamed Kamil waxa uu sheegay in xubnaha maamul goboleedku qayb weyn ay ka qaban doonaan dadaalka xukuumaddu ay wado ku wajahan maareynta iyo weliba daryeelka goobaha biyaha ee reer Guraaga.
sida dogsoontiin waxaa dadaal aan ugu howlanahay baahida xagga biyaha si dadweynaha reer baadiyaha ee dalku ay uga kaaftoomi lahaayeen taasoo qayb ka ahmiyadda beesha caalamku ay ku doonayso in laga baahi baxo biyaha qorshaha ku aadan ujeedooyinka kunsanadeedka cusub ee horumarka dunida caalamka loogu talagalay ujeedooyinkaasi waxay yihiin kuwo loogu talagalay oo lagu doonayo in dal walba uu helo biyo ku filan sanad walba kuwaasi oo joogto noqda maxay xukuumaddu iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti hogaamiyaha dalka Ismaaciil Margele ay ku dhaqaaqeen in la sugo dhooniga oo dhowr sanadood ugu dambeysay lagu sameeyay maalgashiyo badan oo kala duwan waxaana loogu sii gudbayaa waaxda biyaha oo meel mid ah ay ka soo wada jeedaan oo lagu talaabsaday horumarinteeda miisaaniyadda qaranka ee dowladda ayaa kaalin muhiim ka gasha horumarinta goobaha reer miyiga iyagoo dhowrkii sanadood ee ugu dambeysay la kordhiyay miisaaniyaddaasi dadaalkaasi siyaasadeed waxa uu helinayaa dhinacyada la meel dhigay ee ismaamulka gobollada sida golayaasha heerka gobol ee ka soo jeeda degmooyinka iyo tuulooyinka dalka gudihiisa oo ay tahay in iyaguna geestooda ay ka qayb qaataan dadaalka xukuumadda jamhuuriyadda Jabuuti ay ugu tala gashay inay ku kaaftoonto ay kaga baxdo baahida ka haysata dhulka reer baadiyaha xagga biyaha oo goobsi ku noqday dhowrkii sanadood ee laga soo gudbay taasoo xukuumadda jamhuuriyadda Jabuuti ay waafaqday inay xoojiso tayada xagga biyaha ee degmooyinka reer baadiyaha ee gobollada dalka gudihiisa ku yaala waxaana la hirgashay mashaariic kala duwan oo xagga ceelasha biyaha oo haatan iyagu qaarkooda gacanta lagu hayo qaar kale oo badan la fuliyey oo ay ka faa'iideystaan dadweynaha reer baadiyaha ee ku dhaqan gobollada dalka gudihiisa oo iyaga haatan ka faa'iideysanaya mashaariicda xagga biyaha ee xukuumadda jamhuuriyadda Jabuuti ay ugu tala gashay iyadoo markaasi la kaashanaysa hay'adaha iyo wakaaladaha caalamiga ee qaabilsan xagga horumarka taasi oo la meel dhigay qorsheyn ku aadan hindisaha qaran ee horumarka bulshada ee hogaamiyaha dalku isagu markaasi uu ka fuliyey bilowgii sanadkan 2007 ee haatan isagu sii dabeeqaysanaya l'installation d'équipements solaires ou éoliennes seront de plus en plus vulgarisées. gudoomiyaha golaha baarlamaanka ee Jabuuti Idris Arnaoud cali ayaa maanta qaabilay danjiraha dowladda Canada oo soo wakiilatay Jabuuti oo rugtiisa tahay caasimadda Addis Ababa dalka Itoobiya Yves Boulanger Mr. Arnaoud iyo Mr. Boulanger waxay ka wada xaajoodeen sii xoojinta xiriirka saaxiibtinimada iskaashiga u dhexeeya labada dal iyo weliba iskaashiga heerka baarlamaanka u dhexeeya labada dal gudoomiyaha guriga ganacsiga ee Jabuuti Saciid Cumar Muuse ayaa maanta qaabilay maalqabeennada reer Soomaaliya oo ka socda wadamada caalamka maalqabeennadaasi intooda ugu badan waxay ka yimaadeen Dubai, Shiinaha, Sacuudi Carabiya, waqooyiga Mareykanka iyo weliba magaalada Muqdisho waxaana laga marti qaaday boqol jirkii guriga ganacsiga ee Jabuuti oo maanta shalay laga xusay guriga ummadda ee caasimadda Jabuuti gudoomiye Saciid Cumar Muuse oo ka hadlay fadhigaas ayaa mahad celiyay maalqabeennadaasi kadibna waxay u bandhigay dhinacyada kala duwan ee maanta ee dalka jamhuuriyadda Jabuuti mid ka mid ah maalqabeennadaasi ayaa u bogay dowladka Jabuuti kaga jirto kobcinta dhaqan-dhaqaale ee dalka jamhuuriyadda Jabuuti kadib socdaalkii shaqo ee ku tagay madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti gudoomiyaha golaha xukuumadda mudane Ismaaciil Cumar Geele magaalada Paris ee dalka Faransiiska koox ka socota telefishinka dalka ayaa wareysi maanta la yeelatay danjiraha dowladda Faransiiska ee jooga Jabuuti Monsieur Dominique Deschamps waxaana ugu horreyntii weydiiyeen faahfaahin badan inuu ka siiyo socdaalkii madaxweyne Geele ku tagay magaalada Paris iyo weliba kulamadii ula yeeshay mas-uuliyiinta dalka Paris ugu horreyntiina waxaa madaxweynuhu la kulmay madaxweynaha dalka Faransiiska Nicolas Sarkozy visite du président Ismaël Omar Guelleh, on peut la qualifier vraiment labada hogaamiye waxay yeesheen kulan wanaagsan oo isfahan leh uu ka dambeeyay hogaamiyaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Omar Geele iyo hogaamiyaha xukuumadda Faransiiska Nicolas Sarkozy waxa weliba ay ka wada hadleen sidii loo adkeyn lahaa shirkadaha madaxa bannaan ee Jabuuti iyo kuwa dalka Faransiiska laga leeyahay oo wada shaqayn yeesha si shirkadaha Faransiisku ay Jabuuti uga sameyn lahaayeen maalgelin xagga maalgashada
dhaqaalaha iyo ganacsiga iyagoo ka faa'iideysanaya goobta istiraatiijiyadeed ee jamhuuriyadda Jabuuti ay ku taalo si ay uga qayb qaataan horumarka dhaqaale iyo bulsho ee dalka. Go'aankaasi waxa uu noqday mid ay markaasi gudoomeen madaxda shirkadaha Faransiiska ee iyagu lala kulmay, waxaana taasi ay keenaysaa in la sii xoojiyo ilaaqaadka iyo xiriirka saaxiibtinimo ee ka dhexeeya jamhuuriyadda Jabuuti iyo xukuumadda Faransiiska oo heshiiskaasi uu noqday mid markaasi isagu taabagalay. miyay isla soo qaadeen arrimaha xaakimkii Borel? labada madaxweyne way ka wada hadleen in kol kasta laga shaqeeyo xoojinta xiriirka saaxiibtinimo ee labada dowladood, in kolkaasi la isku laaqin xiriirka iskaashi iyo arrinka ku saabsan xaakimka Borel oo ay kala ahayn kuwaasi ay kala yihiin kuwo kala gooniya oo meel midataan ka soo jeedin. xiriirka iskaashi waa in la sii adkeeyaa oo la wanaajiyaa, taasi oo xukuumadda jamhuuriyadda Jabuuti iyo Faransiisku uu ilaaqaad taariikhiya uu ka dhexeeya. arrinka Borelna waa mid gooni ka ah xiriirka xagga iskaashiga ee labada dowladood ay wadaagaan. danjiraha dowladda Faransiiska u jooga Jabuuti dowladda shacabka u waramayay Zainab oo ka mid ah suxufiyiinta Jabuuti. xagga wararka caalamkana ciidamada dalka Britain ayaa si rasmi ah ugu wareejiyay ammaanka magaalada Basora mas'uuliyiinta dalka Ciraaq. munaasabadii lagu kala wareegayay ammaanka magaaladaasi oo lagu qabtay garoonka dayuuradaha waxaa ka hadlay la taliyaha dalka Ciraaq u qaabilsan arrimaha ammaanka Muwafiq Arbay. ciidamada Ingiriiska ayaa gacanta waxa ay ka gasheen oo ay ku wareejiyeen maamulka xagga ammaanka ee magaalada qaniyada kuwa khayraadka shidaalka ee Basra lagu magacaabo ee ku taala koonfurta dalka Ciraaq. ciidamada xukuumadda Iraaqiyiinta oo iyagu haddeeto gacanta ku hay doona ilaalada xagga ammaanka ee magaaladaasi kadib kolkii ay ciidamada dowladda Ingiriisku ay ka soo howlgalayeen magaaladaasi muddo 4 sannadood haatan laga joogo, iyagoo ka shaqeynaya sugidda ammaanka dadweynaha halkaasi ku dhaqan tan iyo sanadkii 2003. ciidamada dowladda Ingiriiska ka soconaya ayaa iyagu ku sugnaa magaalada Basra muddadaasi oo ka howlgalayay ilaalada xagga ammaanka. waxaa munaasabadaasi goobjooga ka ahaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda Iraaqiyiinta Nuur al-Maliki iyo dowladda Ingiriiskana waxaa uga qayb qaatay wasiirka arrimaha dibadda David Malibo oo munaasabadaasi wareejinta goobjoog ka ahaa. ciidamada dowladda Ingiriiska waxaa iyagu markaasi ay sugayeen ilaalada ammaanka ee magaaladaasi Basra. madaxa ciidanka Ingiriiska Commodore Graham Beach ayaa isagu la saxeexday heshiis maamulka magaalada Basra Master Mohammed Al-Wali oo isagu sheegay in ay iyaguna geestooda ciidamada dowladdaasi xukuumadda Iraaqiyiintu ay adkeeyeen ilaalada ammaanka ee magaaladaasi Basra oo la doonayo in xaaladaha xagga nabadgelyaanta laga fogeeyo si loo sugo ammaanka dadweynaha ku dhaqan magaaladaasi Basra. waxaa tallaabadaasi ay noqotay mid markaasi ay soo dhaweeyeen dad iyagu aad u fara badan oo ku dhaqan magaaladaasi Basra ee ku taala koonfurta dalka Ciraaq oo iyagu sheegay in tallaabadani ay tahay mid markaasi waafaqi doonta qawaaniinta u yaalla in la adkeeyo ilaalada xagga ammaanka ee magaaladaasi Basra iyadoo ah magaalo qani ku ah khayraadka shidaalka marka loo eego gobollada kale ee ka tirsan dalkaasi Ciraaq. goobaha wadooyinka waxaa jirayay awal sida la ogsoonaa in qaraxyo shirqoole kala duwan laga geysto, taasi oo kooxaha iyagu howlgallada kacdoonada ka wada waddankaasi Ciraaq gudihiisa ay ka geysan jireen, inkastoo dagaalada dibadjoogana ay u dhexeeyeen. diyaaradaha dagaalka ee ciidamada dalka Turkiga ayaa weerar ku qaaday fariisimooyinka jabhadda PKK ay ku leeyihiin waqooyiga dalka Ciraaq. ciidamada dalka Turkiga waxa ay sheegeen in dhowr goobood weerar ay ku qaadeen. hadal uu ka jeeday telefishinka dalkaasi ra'iisul wasaaraha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa uu sheegay in howlgallada ay ku qaadeen ciidamadaasi ay ku guuleysteen, waxaana uu sheegay in howlgalladaasi ay sii socon doonaan. dhinaca diinta haddii iminka aanu leexno daawadayaal ku dhawaada 3 milyan oo xujaaj ah ayaa isku diyaarinaya gudashada waajibaadka xashka. xujaajtaasi maalinka Salaasada waxay tegi doonaan Carafa kadibna Mina. mas-uuliyiinta Sacuudiga ayaa ku tallaabsaday tallaabooyin lagu xoojinayo ammaanka xujaajtaasi mar kale iyo booq.
dadka xujaajta ee gudanaysa waajibaadka diiniga ee xajka waxa ay ku dhaqaaqeen wasiir tabaabashaysaha gudashada waajibaadkaasi oo u koonsanaya maalinta brito oo isniina dadkani islaamka ee ku sugan dhulka barakaysan ee sacuudiga waxa ay ka kala yimaadeen oo ay ka kala socdaan dalal badan oo ku yaala dunida daafeeyga xukuumadda boqortooyada sacuudiga waxa iyadu ku tallaabsatay adkeynta ilaalada xagga ammaanka ee dhulka barakaysan ee makad al-mukarama oo go-aankaasi uu ka soo fulay boqortooyada sacuudiga si loo adkeeyo ilaalada sugidda xagga ammaanka ee dhulkaasi barakaysan ee xaramka waxaa taasi looga cabsi qabaa in laga fogaado dhibaatooyin ka yimaada sidii sanadkii 2006 dhimashadii badnay ay ku dhinteen 364 qof taasi oo laga sugayo in la adkeeyo ilaalada xagga ammaanka ee dhulkaasi barakaysan ee xaramka dadweynaha ku dhaqan ee iyagu xujaajta ee ka kala yimid dunida daafeeyga ayaa iyagu u bogay go-aanka ka yimiday xukuumadda boqortooyada sacuudiga ee lagu sugayo ammaanka iyaga lala doonayo in la sugo ammaanka dadka xujaajta oo markaas iyagu gudanaya waajibaadka diiniga ee xajka waxaana xajkaasi uu sii socon doonaa ilaa maalinta arbacada ee lagu soo eedan oo ummadda islaamka ee dunida daafeeyga ku dhaqan ay gudan doonto ciidda ciidal adxa waxaa maalinta salaasada ay istaagi doonaan dhammaan dadka xujaajta ee haatan iyagu tir ahaan ku dhow 3 malyan oo qof buurta jabal carafa oo halkaasi ay ku gudanayaan waajibaadka diiniga ee xajka oo si rasmi ah isagu markaasi u bilaami doona maalinta brito oo isniina qodobkaasi ku saabsan xajka ayaa dawadeena kusoo gabagabeynay wixii dalka iyo adduweynaha idinka soo gara habeenkani caawa idala qayb qaatay wariye maxamuud bare booq inta dib u kulmi doona waxaan mahadnaqayaa farsamo yaqaaniinta habeenkani caawa inuu dadin xagga sawirada wararka xagga dalkana waxaad ka heli kartaan bogga internetka www.rtd.1 dib u kulmi doona dhammaantiin wax laga tagna staasio nabadgelyo